بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قدوميها قولها شعبك مدن محمد عثمان جواري، قدوميها أغل كسرة مدن عبد حاشي، قدوميها دور الشذا دكتور بيلة اللبان دكتور بيلة، قدقة دور الشذا وشرفت له وحلبان هذا قدقة دور الشذا مدحوينها لبضة قولة برلمانك الصوماليات مرتي شرفته سراكيش السراعي ضمدا warbaahinta mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. barnaamijkayga waxaa la yidhaahdaa waryaha Soomaaliya. waryaha Soomaaliya waa habar wacasho. waxaa laga yaabaa dadka aan ka iman gobollada ee caasimadda ku dhashay ama banaanka ku dhashay macnaheeda inaysan garanayn. markaan idin macneeyo waxa weeye qofka marka ugu dambaysa oo u baahan yahay hiil haddii marka uu ku guuleysto hiilkaasna uu guuleysanayaa wacnaha korba u kacayaa. haddii uu laakiin ku guuleysan waayo waxaa laga yaabaa inay tahay muxuu ahaa nafbax. waxaan sidaa u idhi 25 sano 26 sano rubuc qarni iyo dheeraad ummad dawlad la'aan ahayd lama hayo laga bilaabo qarnigii 16aad ee la sameeyay loo asaaska loo dhigay dawladda casriga ah modern state magaalada Westphalia ee Germany ku taala. rubuc qarni dad dawlad la'aan lama hayo annaga ma ahna. waxaad moodaa arrintaasi waali inay tahay. waxaad moodaa inaanu isticmaalay hal awood 26 sano oo ka mid ah 100 awoodood oo Ilaahay bixiyo qofka bini aadanka siiyay. sidaad ogtihiin awoodda ugu liidata 100kaas waa awoodda muruqa weey. 99 kalena waa awoodda maskaxda. waxaad moodaa maskaxda inaan ka tagnay. waxaan codsanayaa ama rajaynayaa laga bilaabo waqtigan in maskaxda inoo soo noqoto awoodda 99ka oo xoog badan oo awoodda jilicsan la yiraahdo ama soft power ka la yiraahdo inaanu isticmaalo oo aanu tan muruqa ka tagno tan isdilka ka tagno tan isnacaybka ka tagno. barnaamijkaas waryaha Soomaaliya baaqaas u jeedinayaa maskaxdeena inaan isticmaalno miyirku nagu soo noqdo qaran Soomaaliyeed dhisano. waxaan rabaa marka barnaamijka inaan guda galo. barnaamijkaygu wuxuu leeyahay plan iyo action qorshe iyo waxqabad. halkaan kuma aanan keenin sababtoo waxa weeye warqado tiro badan weeye mana daabici karin. sidaa awgeed waxaan rabaa in kooban oo khudba aan ugu talagalay inaan idin sheego. marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xil buu leeyahay. xilkaas ma dhaafi karo waxay ku caddahay xeerka laakiin waa odaygii reerka waxa dalka ka socdo oo dhan oo shaqo ah inuu isha ku hayo wax ka soxo tala bixiyo ka odayeeyo ayaa loo baahan yahay. halkaan marka waxaan ku sheegi doonaa waxyaalo aan xilka madaxweynaha ahayn laakiin reerkaas uu madaxda ka yahay ummadaas uu madaxda ka yahay uu uga yahay ilaalinteeda dhowristeeda. waxyaalaha qaarkood waxaa iska leh xukuumadda waxyaalaha qaarkood waxaa iska leh xoogga ciidamada xoogga waxyaalaha qaarkood waxaa iska leh ciidamada amniga waxyaalaha qaarkood waxaa iska leh wasaaradaha kale oo dhaqaalaha iyo midda waxbarashada iyo caafimaadku ay ka mid yihiin.
sidaa darteed ama golaha wasiirada guud ahaan sidaa darteed waxaan rabaa iyadoo aragtiya marka hore inaan sheego aragti ahaan aragtidaydu waxay ku aadan tahay sida soo socota barnaamijka aan rabo in haddii Soomaaliya aad doorataan oo madaxweyne Ilaahay iga dhigo jidkaas inay qaado waxaan rabaa nabad iyo nolol cusub Soomaaliya inay ka bilaabato shacbiga Soomaaliyeed u bilaabato waxaan rabaa dawlad qarannimo buuxda leh oo la jaan qaada qarniga 21aad inay dhisanto waxaan rabaa xorriyad iyo madax bannaani ku salaysan guul iyo gobonnimo waxaan rabaa sinaan iyo cadaalad bulsho oo ka hufan nin jeclaysi qabyaalad musuqmaasuq laaluush xatooyo xoolo dadweyne iyo wixii la halmaala waxaan rabaa horumar dhaqan dhaqaale intaas waa koobnaanta aragtida ama visionka waxa la yiraahdo tiirarka barnaamijka wariyaha Soomaaliya marka ugu horeysa madaxweynaha waajibka ugu horeeyo saaran waxa weeye inuu doorto magacaabo wasiirka koowaad ee golaha wasiirada waxaan ballan qaadayaa wasiir koowaad oo wadani ah oo shaqayahana oo aqoon leh oo ay aragnimo leh oo aragti leh inaan u dooro dadka Soomaaliyeed anoo la tashanaya dhinac walba waxa laga rabaa dawladdaas ama xukuumaddaas dhalanaysa in amniga iyo nabadgelyada la sugo waxaan rajaynayaa dhiig dambe oo Soomaaliyeed inuusan xaq darro ku daadan inay xukuumaddaasi ballan qaado waxaan rajaynayaa dawlad rasmi ah oo hay'adaha qaranka oo haddaan hay'adahaasi jirin waxaa maqan mashiinkii dhaqaajin lahaa dawladda waxaynu u baahannahay capacity-ga iyo garaadka iyo aqoonta wasaaradaha wakaaladaha madaxa bannaan iyo hay'adaha kale oo dawladda in la dhiso ilaa heer degmo waxaan doonayaa dawladdaasi inay noqoto mid keenta midnimo iyo madax bannaani haddaan dadka Soomaaliyeed midaysanayn madax bannaani la heli maayo haddii dadka Soomaaliyeed qaybsan yahay gobonnimo la heli maayo haddii dadka Soomaaliyeed qaybsan yahay horumar dhaqaale la heli maayo sidaa darteed midnimadu waxyaalaha ugu horeeya shaqada ugu horeysa weeye midnimada Soomaaliyeed in la raadiyo waxaana lagu raadin karaa kow wada hadallo oo imanaynaa waxaa lagu raadin karaa dib u heshiisiin waad ogtihiin oo dalka meelo badan baa dagaal ka socdaan gobollo dhabarka u jeediyay jamhuuriyadda Soomaaliya jira kuwa federaalka ah laftigoodu dawladda dhexe iyo iyaga markii la isdhinac dhigo waxaad moodaa qaarkood inay dawladda ka xoog badan yihiin waxaan doonaynaa nidaam isku haya qarannimada Soomaaliyeed oo awood dawladeed abuura qodobka afraad waxa weeye dib u heshiisiin haddaan dadka Soomaaliyeed heshiin sidaan hadda u sheegayba dawlad la heli maayo waxaan ku mathalay dawladnimada dukaan shuraaka lagu yahay cidda shuraakada ah haddaysan isku kalsoonayn isjeclayn israbin heshiis dhexool xeer aysan lahayn ma heshiinayaan dukaanku ma dhisnaanayo mid baa xadi mid baa dumin mid baa albaabka kala baxaya marka dambana iyaga isdilahaya waa sidaynu hadda nahay waxaa loo baahan yahay in la raadiyo dib u heshiisiin dhabihi ma dhicin shirarkii dhici jiray 25 sano oo aan soo dhaafnay waxay ahaayeen cayina yar ama sambal yar qayb yar oo shacbiga Soomaaliyeed siyaasiyiina inta la qaado dibad la geeyo oo dibadda lagu soo dhiso dawlad oo diyaarada la soo saaro in dadka la korkeeno la yiraahdo annaga dawladeena meel ay ku doorteen male kama warqabaan inaysan wakiil ka ahayn dadkaas baa suurtooda laakiin dad Soomaali ay yihiin wax dib u heshiisiin la yiraahdo dalka dhacday ma jirto laakiin waxaan idin sheegayaa waqtiga iyo gobonnimada dadka Soomaaliyeed ayaa tensionkii iyo dagaaladii dib u dhigay hoos u dhigay dabaylihii baan biskood siiyay
waxaa nasiib darro ah hogaamiyeyaasheenna kuwii la soo dhaafay iyo kuwa hadda jiraba inay nabarradaas danqiyaan oo toorey la dhacaan oo soo xasuusiyaan dadku waxay isyeelaan ayagoo dadku iloobeen. waxaan doonaynaa hoggaan nabarrada sii biskoodsiiya oo masaajo mariya oo daawo mariya yaan doonaynaa. dib u heshiisiin dhaba waa inay ka dhacdaa heer caasimad, heer gobollo, heer degmo, heer tuulo ilaa heer baadiye. waxaa daliil ah dadku inay iloobeen oo ay israbaan roobka yaroo ka da'ay gobolka bari dadka Soomaaliyeed oo dhan baa tagay waan lagu soo dhaweeyay. marka hoggaankii baa maqan, wax kale ma maqna. haddii haddaba hoggaanka la ii doorto waxaan ballan qaadayaa dib u heshiisiinta dhabta ah inaan dalka geliyo. qodobka shanaad waxa weeye cadaalad iyo sinaan oo shacbiga Soomaaliyeed uu aad ugu baahan yahay. shacbiga Soomaaliyeed ma yeelan doono laandheere iyo laangaab, gun iyo gob, kulligii gun buu noqon doonaa, kulligiisna laandheere weeye. qodobka lixaad dhaqaale kobocsan ama dhaqaale shilis ah. waad ogtihiin khayraadka Soomaaliya leedahay lama taaban, badi iyo biri iyo caloosha dhulkaba way buuxdaa. haddaad la socotaan waayahan dambe waxaa la helay oo la ogaaday batroolka adduunka ugu badan. Sacuudi Arabiya ayaa kaydka adduunka ugu badan lahayd, laakiin annaga hadda lambarka koowaad. waana arrin dhab ah oo aan maamuuryo ahayn oo satellite iyo haddii la ku ron yahay cilmigan cusub ee infrared rays-ka la yiraahdo lagu ogaaday. badeennuna waa buuxdaa, birigeennuna waa buuxaa. haddaynu isna caybka iska dayno isaqballo khayraadkaasaan daldalanaynaa. dadka bini aadankaana dowladaha fakhriga ah nagu wareegsan waa khaati billahi aan ka taaganahay ayagaa noo shaqaynayo, shaqaale noo noqonayo, ayagaa shaqo siinayna. ogaada mana aha wax maamuuryo ama waxaad leedihiin badda Afrika ugu dheer, qaaradda Afrika badaheeda 5 qaybood baa loo qaybiyaa. waxaa la yidhahaa LME, large marine environment baa la yidhaahdaa. annagu hal mid baan keligaan leenahay oo la yiraahdo Somali large marine environment. inta kale kooxo dawladda ah oo isku jira weey. waxaad ogaataan 4 meelood oo kalluun ku dhala adduunka oo dhan meel ka mid ah aan nahay. waana daraasad rasmi ah oo FAO ay samaysay, muxuu ahaa hay'adda Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan cunnada. daraasad rasmi ah 12 sharikadood oo adduunka ugu waaweyn oo kalluunka ay sameeyeen weeye. kalluunka ka soo haajira Hawaii oo Pacifica waqtiga qabowga wuxuu yimaadaa xeebaheenu yimaadaa, cadal uu yimaadaa, wuxuu yimaadaa oo ku dhalaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa xaafuun, wuxuu yimaadaa hurdiye iyo ceelaay iyo ayl iyo hobyo. marka khayrkaas baa haysataan. waxaa naga maqan ciddii maamuli lahayd, hoggaankii maamuli lahaa. waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed weeye meesha u baahan shaqada. bulsho caafimaad qabta, is aqbalsan, is jecel, is qadarisa, xidid iyo xigaal ah in dib loo abuuro. waa abuuran tahay laga shaqeeyo. dawladda ka shaqayn lahayd la dhiso. haddaan hoggaankaas la heli maayo. waxaynu nahay dad kulligood barawd ah oo isla weyn, dad qab leh. waxa isu keeni kara dawladda Soomaaliyeed dad ka dhaxaysa weey. haddii kale isaqbali mayno. waad ogtihiin nooca dawladdu wuxuu noqon doonaa dawlad muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa kaamila siisa. dawlad qof kale dambigiisa aan saarin. waxaan la soconnaa inay jiri jirtay markii qof dambi galo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa iyo qabiilkiisa in dambiga loo qabsado. ilaahay 1500 sano ka hor buu wuxuu inoo sheegay walaa taziru waziratun wizra ukhra. intaasoo jeer bay quraanka ku jirtaa. dawladaha aan muslimka ahayn baa isticmaala. haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba khaasatan dawladaha reer galbeedka ninkii wax bi'iya xaaskiisana lama taabto, caruurtiisana lama taabto, qoyskiisana lama taabto.
marka dawlad ku dhaqanta xuquuqda muwaadinku leeyahay xurmaysa waajibaadkeeda ka baxda dawlad casri ah oo la yiraahdo dawlatul muwaadin waxa carabiga lagu yiraahdo dawladda qofka muwaadinka ah uu leeyahay waxaan rabaa in yar inaan kaga taabto hogaamiyaha aan leeyahay haddaan la helin waxba inoo suurtoobi maayaan oo waxa inoo ka baceen waa hogaamiye xumanimada cabirkiisa halbeeg buu leeyahay halbeegiisa aan idin sheegaya wax yar inaan kaga taabanaya waa in xasuusinaya waa wada taqaaniin waayo culumta islaamiga iyo culumta dunyawiga ah labadaba way ku jirtaa leadership waxa kamid ah qofka hogaamiyaha waa inuu leeyahay calaamad lagu yaqaan ama uu ku caanbaxay oo dad iyo dal jacayl ah waxa la yiraahdaa afka qalaad people centered qofkaasi waa inuu dadka iyo dalka ka jecel yahay naftiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xoolihiisa arinta ayada ah waxa lagu dhigaa cilmiyada akademiga ah laakiin marka quraanka akhrisid laba aayadood baan soo qaadanaya oo cadeynaysa arinta oo labadaba nabiga loogu muxuu ahaa lagu yiri kaleey sallallahu alayhi قال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلهي والنبي صلى الله عليه وسلم كيري آيات القرآن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حداد نين قلبي أدك تحي ودتك كوعد أدك دتك وكعر لها هذا النبي حتى مركز دتك واتعش هيوي سببت الورة عين واسداس وحي آياتك لا هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم هذا وحي هذا وحاتهين ضد وحاتها النبي محمد ونين ضد كيس جعل والرحيم ومؤمنين تا سدا أوجد بعد محوها كم تيستي إن لو راعه يعني إلهي هلك أوجد عدينا يا هدان سدا الله أبورن إنه النبي أحدين أما ضدك والراعين هذا إلهي النبي كده مركب وعدهاي أنا وحنا كقاتي ماستر أوف بيزنس أدمنستريشن MBA بان كقاتي ليدرشيب كوحوه الرأي قفكو إنه دتك تعليه يدلكيس وحنا كحكته بقى أركتدر إنه ليه فيجن إنه ما شاء الله صعده ويقارنه لبعضن كسنة صعده إنه أنت يرتاه كوركسن أما قيس كيسة أما قبيل كيسة وكش شيء وضد كوردن وأركو إنه يقيس كيسة إنه يسكل سويه كل سوري إنه قلو إنه حال داره أقارد كحال داره أقان يواي عرقنمو إنه عادلي هاي الله كعبس له أدو مسلم إنه قوان ليه هاي decision making theory قوان إنه ليه هاي قوان كاس لا تشي كدي إنه ضدك لا تشدوه هذيك الدكتاتور بنقرية هاول كرنما يو في الفرعوني إنه ليه هاي وتربى ذي لكن أنت أسم كدينا يا هجان أن أنت أسلهين هالدوراننا هذا دورتان وجوج ماشي هذا شو خطر بانجلينا هل كان يوم مستغنانين وعن ربع مركا إن هذا يسوي شيريو هذا الله كوكوبان وهالكودجيا حل معنا وأريد الحسوسنا يو لبعتذا سومالي ما أنت كتاجن وحوه الرئيسة لبعتذا لبعد دبعتوا وين بعنا هيستمد وحوه مدة إنسان كأبوري أنا وقعمها أنا بدنا كسمة يسمي هي مدة إلهي كانت بدنا نقعمها أن كسمة يسمي وحا أوحن أو قدرن إسديل كان إسديلين وإندي بهشيسين لقلها وحان ربا دولة عن مدح النقم دونه وهذا هذا اللي يكبل وضوه سومالي لان قبل هذا وقوي وهذا هذا الكسوع لسه ستة بنا الله وهذا هذا سومالي إنه يسكت كلام مارمن أهل السنة ودولة كجوعان وهذا البالغ لينا
dhalinyarada iyada la habaabiyey ee shabaabna wada hadal baan la gelaynaa wixii ogol waxaan ogolayna shacbiga Soomaaliyeed baa iska celinaya dhiig damo Soomaaliyeed ma rabno waan ku dhiiranayaa arrintaas aruurtayadii weeye waxaa suurtooda injineerka ugu fiicnaa ninkii noqon lahaa in la dilay ama isagu wax dilay oo mujrim noqday waxaa suurtooda dhakhtarkii ugu fiicnaan lahaa Soomaaliya in uu noqday ninka la habaabiyey waana ogtihiin waa dhaqan ceshanaynaa wixii nadiidana waa iska dhicinaynaa yeeli mayno ajnabi inuu nagu hayo cycle aan dhammaanayn oo isdila oo mu'amara ah yeeli mayno ciidan shisheeye inaan ka magan gallo cadow annaga dhexdeena oo aan xallin karno waxaan rabaa xildhibaano inaad xasuusataan wax yar barakacayaasha qaxootiga kuwa badda ku daadanaya abaaraha kuwa ay ku dhaceen abaartaasoo xiira xiira ah waxaan idiin sheegayaa abaarta waxaa noogu darsantay labada wey waa go-an yihiin wax kalena maaha El Niño iyo Niña jirta El Niñada iyo La Niña jirta El Niñada effectigeedu sanadkan ama saameynteedu Soomaaliya u badan tahay dawladaha dariska ah oo biyuhu nooga yimaadaan sida Ethiopia oo kale roob waa ka daay laakiin biyuhu waa la leexsaday ogaada Soomaaliya waa sii dhimanaysaa sidaa darteed baa labada weba biyo la'aan ay yihiin khatar baynu ku jiraa shuruucda caalamka u degsan international conventions dawladaha biyuhu ka yimaadaan iyo dawladaha ay maraan way isku xuquuq qofkii taabta waa dambiil caalami ah wax ka hadlaya ma jiraan dawladii ka hadli lahayd waa maqanta hogaankii ka hadli lahaa waa maqan yahay waa walaalaheen waa run shacbiga Ethiopia shacbiga Kenya shacbiga Djibouti walaalaheen way laakiin dawladaha ka dhisan Kenya iyo Ethiopia uma dhaqmaan daris wanaag kuma dhaqmaan waxaan doonaynaa faraha inay nagala baxaan waxaan la soconnaa haddeer oo aan joogno inay ku dhex jiraan loobi ka dhex sameynayaan qofkii la dooran lahaa ma yeelayno dad dambe inay noo magacaabaan annagaa isu magacaabanayna shacbiga Soomaaliyeed baa iska leh hoggaanka ma laha iyagu faraha naga qaadeen hadday naga qaadi waayaan dawlad la'aantan ku dhib badanna haddaan dawlad noqonno dan baa ugu jirta iyaga waayo markaas dee waa la xisaabtamayaa shuruuc baa qabanaysa laakiin markaanaan dawlad lahayn free baan waxaan rabnaan samaynaynaa ogaada ha ogaadeen taas ha ku talagaleen ha noo dhaafeen dadka iyaga ha noo dhaafeen dalka iyaga duulaan kuma ahin ha naga daayeen dibindaabyada wallaahi baysan Soomaali baabi'in karin waaya waxaanu leenahay waxaan nala ku baabi'in karin waan dhaartay Soomaali baabi'in karaan baan ma taqaanay sababta waxa weeye waxaa jira laba nooc baa jira dawlad state waxa loo yaqaano iyo umma dad nationku ilaah baa sameeyay waxa la yiraahdaa waa god made ama ummadu dawlad dadka samaysta ummada kala duwan isku luqad aan ahayn isku dhaqan ahayn isku diin ahayn baa samaysta markay rabtay bilaabataa markay rabtay baabada laakiin nationku ma baabi'i karo waayo waxa ka dhaxeeya waxa weeye waxaan bini aadan sameeyay weeye ilaahay sameeyay annagu tusaale markaan siiyo dawladaha Afrika waxa gumaystay Ingiriis Talyaani Faransiis Portuguese
annaga saddex dowladood waxay gumaysato isugu tagtay annaga jira haddana shan loo qaybiyay oo dowladda darisa lagu daray kuwa kale oo aan saa loo gelin hal dowlad ingiriiska kale mesela gumaystay ama faransiiska gumaystay afkii faransiiskana waa ku hadlaan dhaqankiisina waa qaateen annagu ka gar halaf baan ku hadalnaa bal carabtu gaaraysa tag jigjiga tag jabuuti tag maxaa lagu hadlaa diinta islaamka af soomaali dhaqan macawis sooma baa la qaataa iyo diric gabdhahan naalama jabin karo laakiin waa la lugoyn karaa waqtiga ayaa maaday markaan lugooyada garannana waa kacnaa sidii maroodigii baanuna u kacnaa ha ogaadeen cadow waa yahay waxaan rabaa inaan ballanqaadkan soo jeediyo hortiinna iyo ilaahay hortiisa waxaan rabaa dowlad dadkeeda qowsaar u ah mulkiilaha runtaahina uu yahay dadka ee dowladnimada ogaada dowladdu waa dadka xukuumaddu weeyada waxa kale dadka ayaa iskala dowladnimada haddaysan lahayn maxaanu u aadno ninkii qofkiiba 150 qof soo doorato maanu annagu ismagacuuno waa inaad garataan taas waxaan rabaa dowlad ku dhaqanta dastuurka iyo xeerka ummaddu leedahay si xarfiyana ugu dhaqanta waayo dowladaha xumaado waxay u xumaadaan waxa lagu heshiiyay bay ka boodaan annagu ma akhrinaba dabcan madaxweynaha shaqadiisa ugu horeysa waxa weeye ilaalinta dastuurkaas waxaan ballan qaadayaa inaan dastuurka ilaaliyo inta aan ku leeyahay dastuurka inta warqadda goosto masawirtaa waxaan ku dhegsanayaa qolka jiifka musqusha baabuurka albaabkiisa si aan u iloobin si madaxweynaha ra'iisul wasaaradda ma aysan isugu dhicin saasaan yeelayaa xarfiyan baan ugu dhaqmayaa hadda la waxaan rabaa dowlad u naxariisata dadkeeda inay noqoto waxaan rabaa dowlad kaga dayata nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo nabigeena iyo naxariista korkiisa ha ahaato xurmada iyo xeer dhowrista dowlad abubakar sidiiq kaga dayata deeqda iyo daacadnimada dowlad cismaan bin cafaan kaga dayata deeqda muxuu ahaa iyo daacadnimada dowlad kaga dayata cadaaladda iyo haladayga cumar ibn khadaab dowlad cilmiga iyo xigmadda kaga dayata cali ibn abi taalib kurtood naxariistii nabadgelyo korkooda ahaato dowlad kaga dayata teknolojiyada iyo casriga dowladaha caalamka ee ku horumaray teknolojiyadaas iyo casriga iyo culumta waxaan rabaa dowlad ciidankeedu yahay ciidan tababaran tayo leh xuquuqdiisa hela waajibaadkiisana ka baxa ciidankaasoo isugu jira kan amniga iyo kan xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan tababarkiisa iyo qalabkiisuba ay diyaar u yihiin ciidan mushaharkiisa hela bishu markay dhamaato ciidan daawadiisa hela ciidan daryeelka qoyskiisa hela asaguna waajibkiisa ka baxa aan ahayn ciidan beeleed waa isku dhafaynaa ciidanka Soomaaliyeed mid baan ka dhigaynaa hal talis buu yeelanayaa dowlad khayraadka dalkeeda ilaalisa ugana faa'iideysa dadka deegaanka environment-ka Soomaaliya oo aad iyo aad u halaabay oo aynaan dareemeyn waayo dadkii baa dhibaataysan laakiin environment-ka dhibtaan gaarsiinay yaa ka daran waxaad arkaysaa xoolo cunaya bac iyo kartoon environment-ka Soomaaliya waa la destroy garay waa la burburiyay waanu soo celinaynaa hadda la idmo badiya biriba dowlad dunida iyo dariskaba xiriir wanaagsan la yeelata oo isu dheelatiran
tan lagu jiifo iyada aysan ahayn tan dabadhilifka iyada aysan ahayn taas baan rajaynayaa inay noqoto ugu dambaystii xildhibaan haddaan nabad doonaysid dalkaagana u doonaysid idooro nolol haddaad doonaysidna idooro waxaan kuu sheegayaa 3 nooc baanu u sharaxanahay dadka sharaxan idooro aan ku dile idooro aan ku dayace iyo idooro aan ku daryeele anigu kuwa dhammaana waa mahadsantihiin